بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا عشركي أفراد مادة كاستمر كير عشركين أفراد waxaa ku qaadan doona hadduu alla yiraahdo ilaa 4 qodob oo muhiim ah qodobada aan ku qaadan doono casharkeena afraad waxaa ka mid ah waxa la yiraahdo understanding customers problem in la fahmo caqabadaha ama dhibaatooyinka macaamiisha haysata waxyaabaha kale aan ku baran doono waxaa ka mid ah meeting basic needs in la daboolo baahiyaha aasaasiga ah ee macaamiisha ay u baahan yihiin sidoo kale waxaad ku baran doonaa wax la yiraahdo thinking out of the box inaan ka fikirno meel ka fog ama meel ka baxsan meelaha macaamiishu ay ka fikirayaan si aan baahiyahooda u daboolno oo aysan caqabadaha haysta macaamiisha dib ugu soo laaban sidoo kale waxyaabaha aan baran doono waxaa ka mid ah waxa la yiraahdo going the extra mile oo ah in aan sameyno dadaal dheeri ah oo aan ku caawinayno macaamiisha afartan qodob ayaa mid u dul istaagi doona intuu casharkeena socdo insha Allah ku soo dhawaada casharkeena afraad waayahay understanding customers problem waa fahmidda caqabadaha macaamiisha haysato marka qofka ah customer care waxaa looga baahan yahay inuu yahay qof responsible mas'uulna u qaaday inuu haayo macaamiisha isla markaana daryeelo as someone responsible for handling customers sida qof mas'uul ka ah in uu handle gareeyo uu haayo macaamiisha waaba tahay you should know waa inaad ogaataa ama waa inaad taqaano when to listen and when to speak marka aad macaamiisha la hadlayso iyo marka aad dhageysanayso tani waxay ku fududeynaysaa in macaamiisha marka aad dhageysato aad u jawaabto kadib uu ku qanco macaamiisha ama macmiilka oraahda ama hadalka aad leedahay marka dhageysigu waa muhiim this will enable to you to understand tani waxay ku ogolaanaysaa inaad fahanto the problem caqabada inaad dhageysato macaamiisha waxay ku ogolaanaysaa inaad fahanto culayska ama caqabadaha macaamiisha haysto the first step in solving problem in any problem waana stepka koowaad ama talaabada koowaad ee lagu xaliyo problem kasta ee dunida ka jira dhaxmara aadanaha haddii aadanuhu ay isdhegeystaan oo ay kala war qaadaan si isdhegeysi iyo xushmad ay ku jirto waxaa fududaanaysa in la xaliyo caqabadaha iyo culeysyada dhexdooda ah waayahay meeting basic needs waxaan leenahay waa daboolidda asaasiyaadka baahiyaha asaasiyaadka waa baahiyaha asaasiyaadka ee macaamiisha u baahan yihiin baahiyaha asaasiyaadka waxay noqon karaan in adeegii ama badeecada aad ka iibisay waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee qofku uu ka faa'iidi lahaa inay ka maqan yihiin taas waxaa dhihi karnaa waa baahiyaha asaasiga ah haddaba si loo daboolo baahiyaha asaasiga ee macaamiisha waxaa jiro the basic stebyo ama tallaabooyin muhiima ama asaasi ayaa jiro in understanding oo ah in la fahmo customers problemska ama caqabadaha macaamiisha haysto listen patiently to what the customer has to say sidoo koowaad waa inaad mar hore ama sida maxaa la yiraahdaa si dulqaad leh waa inaad u dhageysataa waxa macaamilku uu ku leeyahay dulqaad ku dhageyso macaamiishu waxay leeyihiin waxaa dhici karto ereyada macaamiisha ay leeyihiin qaar ka mid ah inay ku dhibayaan sidaas darteed waa inaad dulqaad u yeelataa oo aad dhageysataa waxa macaamilku uu leeyahay qodobka labaad write down all that is being said waa inaad qortaa waxa macaamilku uu leeyahay oo dhan haddii aad wada qori karin waxaa loola jeedaa waa inaad nood gareysaa pointiska ama main pointiska macaamilka uu ka hadlaya meelaha ugu muhiimsan macaamilka uu ka hadlayo waa inaad qorataa si hadhoodii aad wax uga weydiisa caqabadaha ka haysto qodobka saddexaad waxaa layidhahdaa don't interrupt if you have a query ha ka dhexgelin macaamilka hadalkiisa haddii aad wax su'aal hayso note it down qoro meel ku qoro kadib macaamilka weydii marka uu warkiisa dhameysto balse intuu warka wado macaamilka ka dhexgelin qodobka afraad waxaa waaye once the customer has finished narrating his problem summarize your understanding from your note markuu macaamilku dhameysto inuu sharaxaad ka bixiyo caqabada haysato u soo koob waxa aad ka fahantay hadalkiisa ee aad markii hore qoratay waxay kuu fududaanaysaa in adiga iyo macaamilka aad isfahantaan kadibna aad xaliso caqabadaha iyo culeyska macaamilkaasi haysta waayahay after understanding the problem marka aad fahanto problemka macaamilka haystay you should immediately decide whether you will be able to solve the problem or need to escalate marka aad fahanto culeyska ama caqabadii macaamilka haysatay
waa inaad si degdeg ah u go'aansataa haddii aad adiga awood u leedahay inaad xalliso culayska ama caqabadda macmiilkaasi haysata, ama inaad u baahan tahay inaad kor u gudbiso oo ciddii kaa sarreysa aad u gudbiso. Escalate waxaa la yidhahdaa ciddii adiga kaa sarreysa ee kaaga macnaha sarreysa mas-uuliyaddan inaad u gudbiso si loo xaliyo caqabadda macmiilkaani haysata. Whatever your conclusion, wax walba oo conclusionkaada ama gabagabadaada ay noqoto ama go'aankaada uu noqdoba, assure the customer politely and convincingly that his problem will be solved. Waxaad hubisaa in macmiilka si edeb leh oo weliba qanacsanaan ku jirto in loo xaliyay problemka macmiilkaasi haystay. Taas ayaa waxaa loo yaqaanaa good customer service. Waa in macmiilkaasi loogu adeegay adeeg aad u wanaagsan. Waayahay. Thinking out of the box. Thinking out of the box waxaan leenahay inaan ka fikirno meel ka baxsan meelaha macaamiishu ay ka fikirayaan. Meelaha macaamiishu ay ka fikirayaan maxaa loola jeedaa? Macmiilka waxaa dhici karta inuu ka fikirayo kaliya caqabadda markaasi haysata, balse adiga aad taqaano marka aad ka fikirto meelo kala duwan culayska macmiilka haysto meesha uu ka yimid iyo xalka kama dambaysta ee lagu xalin karo caqabadaas macmiilka haysata. Marka waa inaad samaysaa waxa la yiraahdo thinking out of the box. Waayahay. Thinking out of the box waxaan leenahay having a problem solving attitude is essential for customer service associate. Xiriiriyaasha customer service ama dadka ka shaqeeya waa xirfad aas-aasi u ah in ay yaqaanaan xalinta problemka macaamiisha haysto. As most customers are inarticulate, maadaama inta badan macaamiishu ay yihiin inarticulate. Inarticulate means qof aan warka iyo waxyaabaha uu qaba aan sheegi karin ayaa waxaa loo yaqaanaa inarticulate. Soomaali waxaa lagu yidhahdaa afjaxuun, waa qof aan awoodin ama aanan hal mar wada sheegi karin culayska iyo caqabadda haysato. Sidaas darteed adigu waxaad awood u leedahay inaad macaamiilkaasi ka xaliso, marka waa inaad samaysaa out of the box thinking si aad dhinacyo badan aga fikirto. Waxaa leedahay arrintaanina waa is crucial to solve the problem. Waxay muhiim u tahay in la xaliyo problemka. Even if the customer have been divined, xitaa markii macmiilka uu qeexo uu yaqaano waxa macnaha macmiilkaasi uu ka cabanayo, it's not necessary that it has straightforward solution. Qasab ma in loo hayo xal toos ah, laakiin waxaa muhiim ah in marka hore la isla meel dhigo caqabadda macmiilkaasi haysato oo shirkaddu go'aan ay ka gaarto xalka macmiilkaasi iyo xalkiisa. Waayahay. Going the extra mile. Qodobkan ay kusoo gabagabeyn doonaa casharkeena afraad. Going the extra mile waxaa leenahay waa inaad samaysaa tallaabooyin dheeri ah. Tallaabooyin dheeri means ma ahan inaad socoto oo socod dheeri ah samayso, balse waxaa loola jeedaa inaad samayso dadaal dheeri ah. Extra mile waa dadaal dheeri ah. Waayahay. Going the extra mile waa samaynta dadaal dheeri ah. Every customer service department has set laid down norms, usually written. These norms or rules are there. Inta badan customer service departmentska ama waxda la yiraahdo customer service waxaa loo dejiyaa shuruuc. Norms waa xeerar ama shuruuc usually written mar walba qoran. Kaliya maahan departmentiga, balse department kasta ay shirkadu leedahay, haddii ahaan lahaayeen sales department, customer service department, marketing department, finance department, any department ay shirkadu leedahay waxaa loo dejiyaa waxa loo yaqaano norms, rules, regulations. Dhammaan waa isku macno loogu talagalay in lagu hago departmentska ama waxdaas. Ruleskaas ama shuruucdaas la dejiyay waxay xadidayaan ama ay responsibility mas'uuliyadda u sameynayaan tiimka ama kooxda ka shaqeysa waxdaas. Sidaas darteed waxdan loo yaqaano customer service department shuruucdeeda ama xeerarka loo dejiyo waxaa ka mid ah in la qeexo team members responsibility, mas'uuliyadda waaxda xubnaha waaxda ka shaqeynaya mas'uuliyadda ay leeyihiin in la isla qeexo oo la yiraahdo mas'uuliyadaha 1 2 3 ay leeyihiin, ka badan ma sameyn karaan. Sidoo kale waxyaabaha la isla qeexo waxaa ka mid ah oo meesha ruleska ka mid ah in la establish gareeyo ama la aas-aaso protocol ku saabsan for interdepartmental communication. Interdepartmental communication waxaa loo yaqaanaa waa xiriirka dhex mara departmentska kala duwan ee shirkadda. Tusaale ahaan
departmentiska loo yaqaano ama departmentiga la yirahdo customer service markuu xiriir la sameeyo departmentiga loo yaqaano marketing department taas ayaa waxaa loo yaqaanaa interdepartmental communication. sidoo kale sales department markuu xiriir la sameeyo finance department iyadana waxaa loo yaqaanaa interdepartmental communication. taas ayaa waxaa loo yaqaanaa protocolka ay ku shaqeeyaan laba waax oo shirkadu ka wada mid ah iyadana in la isla qeexo. sidoo kale waxaa ka mid ah waxa loo yaqaan outline what team members is not required to do. waxa xubnaha kala duwan ee memberska waaxda waxyaabaha ka mamnuuca ah inaysan sameyn. waxyaabo waa loo fududeyn karaa oo waajibaad ay tahay inay sameeyaan, waxyaabana waa ka mamnuuc. haddaba maxay yihiin waxyaabaha ka mamnuuca iyaduna in la isla meel dhigo. shuruucdan iyo guidelineskan aan soo sheegnay waxa ay ilaalinaysaa your professional interest, xirfadaada shakhsiyadeed ayay ilaalinaysaa. sidaas darteed waxaa u baahan tahay in aad raacdo ruleska iyo regulationska shirkadu ay dejisay oo loo dejiyey departmentska ama waaxda markaas aad ka shaqeyso. no one will stop from you on going an extra mile to help customer. marka ujeedada danta laga lahay dhan qodobka waa qodobkaani. marka rules kasta ama shuruuc kastoo la dejiyey cidna kaama hor istaagi karta in aad sameyso tallaabooyin dheeri aad macmiil ku caawinayso. That's what we need, what we say extra mile. In fact, as face of your organization, sida xaqiiqda ah wax aad ku shaqeynayso waa magaca ama faceka shirkadaada. You should do waa inaad sameysaa everything in your power, waxa walba oo aad awoodo ama awooddaada ay tahay to solve si aad u xaliso customers problems, caqabadaha macaamiisha haysta. A satisfied customer, macmiilka qanacsani, is the best publicity, waa xayeysiinta ugu wanaagsan any organization can have. waa xayeysiinta ama dacaayadda ama maxaa la yidhahdaa suuqgeynta ugu wanaagsan ee shirkad ay haysato. plus waxaa dheeriya intaas keliya maaha in xayeysiin ay u tahay, waxaa intaas dheeriya customer satisfied customer, macaamiilka qanacsan will become loyal to, sidoo kale daacad ayuu ku noqon doonaa. loyal customer ayaa abuuri doonta haddii macaamiisha sida wanaagsan aad ugu shaqeyso. macaamilka loyal customerka muxuu sameeyaa? buying your product, wuxuu iibsadaa badeecadaada every time need, mar walba oo u baahdo, rather than looking for other option, halka option kale ama shirkad kale uu raadi lahaa badeecadaada ayuu iibsanayaa. That's what we call loyal customer. kaas ayaa loogu yeeraa loyal customer. guud ahaan casharkii afraad ee maadada customer care intaas ayaanu kusoo koobayaa. waxaan idinkaga tegayaa sida ay nabadgelyo. salaamullaahi calaykum waraxmatuh wabarakaatu.